runtii saa u aragtay xafladan maanta ee hay-adda caalamiga ah ee siida ay soo qaban qaabisay ee ugu marti qaaday dahabshiil bangiyada kale ee waddanka ka jira waxay muujinaysaa sida ay siida doonayso in waddanka horumar looga dhaliyo oo iyadoo shaqo abuurka la xoojinayo siiba dadka dhalinyarada ama dumarka ah ee bacmushtariga yaryar ay doonayaan inay hirgeliyaan dahabshiil bankna inuu qayb ka qaato oo uu bacmushtariga yaryar caawiyo wuxuu caawin karayo maadaama aan anagu marba ummadda u shaqeyno meel ay joogaanba ayaa runtii xafladani ku saabsanta marka siida hay-adan kaalmada caalamiga ah ee dalka Sweden iyada ilaa ambasadorkoodii uu joogay xagee bay markaa maxay ka caawinaysaa dadkan ay caawinayso idinka ay idiin soo marinayso wada shaqaynta ka leedihiin dahabshiil iyo baaran kale hay-addan siida waa hay-ad inta badan adduunka meela ka shaqaysaba isku taxallujisa arrimaha shaqa abuuridda arrimaha horumarka ee dhaqaalaha ah ama ganacsiga ha noqoto yaryar ama kuwa waaweyn siyaabaha shirkadaha waaweyn ee bangiyada ah ay ula shaqaysaa waxa weeyaan mararka qaarkood mar waxay siiyaan technical advice aqoon kororsi bay siiyaan sidii maaragtay ganacsatada yar loola shaqayn lahaa oo ay ganacsatada yar way kala duwan yihiin baahidoodu qaar baa laga yaabaa inay fikradun hayaan lacagtii ka maqan tahay qaar baa laga yaabaa lacagtii oo yar inay hayaan ama aqoontii ay baacmushtariga ay ku dhalin lahaayeen ay ka maqan tahay ama loo maamuli lahaaba waayo adduunka waad og tahay oo marka business la maamulayo waxaa la sameeya waxa ingiriisi lagu yidhaha feasibility study aqoontii oo la ururiyo qorshayn business plan waxyaalo badan baa iska jiro oo qofku si uu guulaysto ay u dhalato kadibna waxaa qofkaas uu u baahan yahay inuu helo lacagtii uu businesska ku rangarayn lahaa kadibna waxaa imanaysa siduu u maamuli lahaa lacagtaa lafteedii waad ogtahay bacmushtarigu waa 100 istabood baa ama 100 jaranjara isku daba xiga haddaad mid ka dhacdid waxaa laga yaabaa in waxaagii oo dhan ay burburaan marka dahabshiil bank oo kale mar walba wuxuu isku taxallujinayaa in ganacsatada yaryar ay mar walba ka qayb qaataan waana ku faraxsanay bangiyadan kale ee waddanka ka shaqaynaya iyaguna inay doonayaan inay shaqo abuuridda xoojiyaan waayo waddankeennu fursado badan oo shaqo laga abuuri kara baa taalla marka Premier Bank iyo Dahabshiil iyo IBS iyo kuwan ku qoran marka meesha jooga iyo shuraako kale iyo marka ma lacagtii baa la idin soo marinaya idinkoo hay'adan idin soo marinaysa oo dabadeetana idinka u dhaxaynaya iyo hay'adan Swedish Siida runtii marka laga hadlayo siida waa hay-adda iyadoo horumarka ah waxaana isku taxallujinaysaa inay bangiyada ay maxaa la yidhaahdaa dhiirigeliso la shaqayso sidii deynta ama ganacsiga ama maxaa waxyaalahan la yidhahda access to finance sidii lacagta bacmushtariga yar ay u heli lahaayeen loo ballaarin lahaa ayay ku dhiirigelinaysaa sida lacag imika bixinayso oo ganacsata siinaysaa ma jirto leedahay lacagta ganacsiga qaado kanoo qaado ujeeddada waxay ujeedaan in bangiyada waddanka ka shaqeeya ay ku dhiirigeliyaan sidii ay bacmushtariga yaryar ay u horumarin lahaayeen ama ha noqoto mobileka ha ku qaateen sida idahab oo kale ama ha ku noqdo sida maaragtay deyn yaroo kooban ha heleen ama ha noqoto lacagaha waddanka shaqada lagu abuuray ha noqoto dhiirigelintaas siba kuwa deynta la siinayo in loo fududeeyo oo waxa alaala wixii lagu fududeyn kara la qabto bay doonaysaa inay siido bangiyada waddanka ka jira ay ku dhiirigeliso siiba dahabshiiliyo hadhowna waa laga soo celinaya Soomaaliya idinka idin soo marinayaan dadku markaasi bacmushtariga yaryar mar walba waxaan doonaynaa inay dahabshiil iyo bangiyada ay lacagtooda dhigtaan inay isticmaalaan in haddii maalgelin u baahan yihiin ay bangiyada noogu yimaadaan inay mobile paymentkayga sida idahab isticmaalaan mar walba waa dhiirigelinayna haddii alla ka dhigo